goobaha waxbarasho dhani maanta gobolkeena haddii la isu wada geeyo oo goob la wada keeno dadweynaan duruusiyo tacliin ciidu ku gaadhayne. iskoolka Gateway oo kamid ah iskoolada waxbarashada magaalada Laascaanood ayaa qaar kamid ah ardayda dhigato ka qalin jabisay dufcado kala duwan oo iskoolkaasi kamid ah u qabtay munaasabad lagu shahaaday guddoonsiinayo ka markacaysa waxyaabaha ay barteen waxaana munaasabadaasi ka dhacday Hotel Mustaqbal waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen maamulka iyo macallimiinta iskoolka Gateway gudoomiyaha jaamacadda Nugaal madax dhaqameed waalidiin ardayda qalin jabinaysa iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana munaasabadaasi ugu horeyn ka hadlay kana warbixiyay maamulaha iskoolka Gateway waxa uu sheegay inay dufcadan tahay tii afraad ay ka baxday iskoolkaasi ayna maanta u fadhiyaan qalin jabinta dufcadan oo ka kooban ardayda baratay luqadaha Ingiriiska ee xisaabta. iskoolka Gateway ama iskoolada Gateway qaybaheeda kala duwan ee laga bilaabo secondary-ga iyo primaryada labada primary iyo halka secondary waxaa inta u raaca oo iskuulku uu kobciyaa qaybo kale oo baahiyaha gobolka ka mid ah. qaybta maanta la iskugu yimid waa qaybta luqadda Ingiriisiga iyo xisaabta. luqadda Ingiriisiga weligeedba way ay jirtay dufcooyin iyo koorsooyin ama intensive course ha ahaato ama ha ahaato graduate ha ahaato laakiin waxaan ku soo biirinay sanadkan in bal koorsooyin xisaabta ah oo ardada ka dhista maskaxda qaabka isugu nimid oo aynu goobtan ku qabsan doonaa xafladii ardaydii koorsooyinka luqadaha iyo xisaabta muddadii dheerayd ku soo guda jiray oo qalinjabintii markaas saaka ay noqotay. geestooda martiraftii madashaasi ka soo qayb gashay ayaa u mahadnaqay mas'uuliyiinta maamulka iskoolka Gateway kaas ay ku amaaneen wax soo saarka ardayda iyo aqoonta lagu bartay iskoolka Gateway oo tayadoodu sareyso. arkay inamada iyo hablaha dhalinyarada ubaxa mustaqbalka hooyooyinka iyo aabooyinka meesha fadhiya oo tacliintii ay barteen maanta loo dabaaldegayo. adduunku waa isla qabasho. ninkiina wax idin soo baray kulli waxay ku wada farxayaan waxa aad soo barateen maalinta aad ku shaqaysaan maalinta aad shaqo ku qabataan maalinta hadduu doono shaqada lacag baadan ku inaad si volunteera qof aan waxba aqoonin aad wax ugu barto. hooyo isu geyn karweedee labo loo geeyey labo waxaa soo baxaya afar aad isugu darto waxa weeyaan waa wax weyn runtii. waxa weeyaan tabacaagii aad tabacaysay maanu khasaarin waanu ka midha dhalinay hamigaagii aad magaranaysaa in badan ku fakaraysayna maanta midha dhalkiisii aad haysaa. waxaan ku leenahay waalid maanta waxbalyada ugu weyni ardada ma aha waa adiga. aniga mar koowaad iyo mar labaadba waxay farxad tahay xafladan maanta iskuulka Gateway uu qabanayo farxad gaar ah tahay oo kulli ciyaalkeeda caruurtooda waxay dhigtaan Gateway. aniga laftigaygu bahda Gateway baan ka tirsanahay oo muxuu ahaa macallimiinta oo dhan saaxiib baan noogu xitay iyo tusaalaha luqadda aqoone ee waxba kama dheegan karo. waad ogtihiin oo afafka waa la isku fasiray laakiin luqadda sida saxda ah loogu fasiray in markaad ku raadiso aad ku heliso waa Ingiriiska. haddaad Soomaali iyo istiraahdo isku fasir maaragtay luqad kale oo caalami ah waxa laga yaabaa in si khaldan loo fasiray. تعليمته قفك يستبرته وح معها يعني علم وين مكانته لكن يكبد شو وقفك مركو يقف متعلمة وأرض سومري ويسكون سوري كتير أنا كان مقتل ربع وحنكود هالينا يودينا معلي وروحنا ميلو تاجناي قفينو ويرادين قيساد تعليمتي وقوشو قعنتنا إليقران وعد قادن هالكادو وجرتان قرآن Gateway buur baahad kortee hawga tagin bannaan garoon baadaxa hadhatee hawga kicin galgelin garoon baadaxa hadhatee hawga kicin galgelin oyaanay sharaftaada fiid meri kaafid may. My teacher gave me a lot of motivation to learn this communicating language. Then I learned a lot of other words. So
ever, of last year we become qualified as a native English language. munaasabadan oo ay mid Ilyatus qabatay ayaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay waxay ka marxaati kaceen horumarka dhanka waxbarashada iskoolka Gateway ku talaabsaday tan iyo intuu jiray waxayna sheegeen inuu yahay iskoolka Gateway goobaha waxbarashada inta badan ay ka aflixeen hal doorka gobolka Sool. Maxamed Ahmed Jaamac Maxamed Bidaanshe telefishinka caalamiga ee waa bari magaalada Laascaanood.